Dunida kubadda cagta ayaa u fadhida murugada iyo baroordiiqa Andres Balanta oo si rasmi ah loogu dhawaaqay inuu geeriyooday kadib markii uu ku dhacay garoonka tababarka xilli ciyaartoyda kooxdiisa ay sameynayeen tababarka maalinlaha. Andres Balanta oo loola cararay isbitaalka markii uu ku suuxay garoonka dhexdiisa, waxaana dhakhaatiirta ay xaqiijiyeen inuu wadnaha istaagay oo uu geeriyooday daqiiqado kahor intii aan isbitaalka la keenin. 22 sano jirkan u dhashay wadanka Colombia una ciyaarayay kooxda reer Argentina ee Atletico Tucumán ayaa kamid ah xulka qarankiisa Colombia isagoo xilli ciyaareedkan kooxdiisa u saftay 7 kulan. Andres Balanta oo ku dhashay magaalada Cali ee dalka Colombia waxa uu dhulka ku dhacay oo uu galay kooma 40 daqiiqadood markii uu socday tababarka kooxdiisa, waxaana uu ku geeriyooday isla garoonka dhexdiisa sida ay xaqiijiyeen dhakhaatiirta oo markii isbitaalka loogu geeyay maamulka u sheegeen in xidigan uu waqti hore u geeriyooday. Kubadsameeyahan oo soo ciyaaray heerarka kala duwan ee xulka qaranka Colombia waxaa geeridiisa ka hadlay xiriirka kubadda cagta Colombia iyo sidoo kale kooxdiisa. Haliga reer Argentina Sergio Kun Aguero ayaa isna ilmada cishan waayay markii ay soo gaartay geerida Andres Balanta, waxaana uu sheegay in sida ciyaaryahankaasi uu dhintay ahayd sidii ku dhacday isaga oo sanada ka hor waqtigaasi wadnaha istaagay isagoo u ciyaaray Barcelona, balse haddana Ilaahay badbaadiyay oo daqiiqada kadib shaqeeyay wadnihiisa markii ay dhakhaatiirta kooxdiisa ay ku xireen mishiino ka caawiya inuu neefsado.